بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. maanta fiidiyogeena waxaanu diiradda ku saari doonaa ama u daaranaan doonaa sidee ayaad u heli kartaa application kasta oo aad u baahato isagoo full version oo free aad ugu heli kartaa applicationo badan oo la isticmaalo iyagoo marka hore waxaa lasoo geliya Google Play Store-ka trailer ama maxay ahaaday aan full version ahayn oo ads yahay waxyaaba badan ay la socdaan oo deetana ay ku yidhaahdaan intaasoo lacaga bixi oo sadoo heshay applicationkaas full version oo bilaa ads ama bilaa xayeysiina oo applicationkaas full version oo si fiican wada shaqeynaya application dhammaystiran applicationo badan ayaa jira oo saasa haddaba sida applicationada iyo application kasta oo baahataad full version ugu heli karaysa waxaad u baahantahay inaad isticmaasho barnaamijkan loo yaqaano Aptoide oo barnaamijkan hadda soo qaaday Aptoide baa la yidhaahdaa 90% application kasta oo baahato isagoo full version oo free ayaad ka helaysaa application caadi ah kasoo dejisan karaysaa oo sida Play Store-ka iyo Mobile Market, Mobile Black Market makawada oo sida meelaha store-ada laga soo dejiyo application-ka ayuu la mid yahay isagoo sii dheer yahay application kasta free baad ku heli karaysaa oo isagoo full version waliba mararka qaar aad heli karaysaa marka Aptoide sidoo heli karaysaa Aptoide Google Play Store kama helisid baan u maleynayaa waayo amba ka waayay laakiin waxaad ka heli karaysaa Google-ka caadiga ah dadka baadho waad ka heli karaysaa Google-kaaga marka saab gasho waxaad ku qortaa aptoide.apk waa macnaheedu waxa weeyaan waa inaad caddayso inuu faylkan ama waxaanad raadinayso uu yahay apk uu fayl yahay yacni software oo application uu yahay ayaad caddaynaysaa .apk markaad raacinayso okay search dheh markuu saa kugu soo baxo searchinku waxaad dooranaysaa linkigaas ayaad dooranaysaa hadda calaamada aad saarantay Aptoide download apk for Android ayaad dooranaysaa markaad linkiga doorto linkiga waa idiin soo diri doonaa dhinaca waxaan soo gelin doonaa allahumma salli ala maxamed youtube-ka haddaad qaybta youtube-ka ee videoga ku jiro aad hoosteeda qaybta description-ka haddaad eegto waad helaysaa waa linkiga haddaan koobiyeynayaaba linkiga koobi baan idhi hadda waan koobiyey marka waxaan soo dhigi doonaa qaybta description-ka ayaan soo dhigi doonaa youtube-ka haddaad xagga hoose gashaan qaybta description-ka la yidhaahdo waa idiin soo dhigi doonaa linkiga xaggan toos ku keenaya page-kan buu toos ku keenaya markaad linkiga click siiso deetana waxaad ku dhufan doontaa install bartaa ay ku qorantay markaad page-kan timaado bartaas ayaad ku dhufan doontaa ay ku qorantay install waad aragtaa maan umaleynaya goobada cas ay saarantay ayaad ku dhufan doontaa install baad oran doontaa goobada ku dhufataan aad install tiraahdaan download ku saarayaa okay dheh automatic download ku soconayaa waa kan Aptoide uu download gareynayaa anu hadda ma bixin iska xirayaa waayo hore ayaan dejistay Aptoide application-ka markaad install tiraahdo ku dhamaado download-ku installation-ka dhamee installation-ka ku dhamaado application-ku ku soo kacaya si caadi ah application-ka face-kiisu waa sidan oo kale kugu soo baxayaa ayuu application aad ka heli karaysaa waad aragtaa Facebook-kii Instagram-kii Snapchat-kii wax kastaad u baahatid ka heli karaysaa isagoo weliba free oo full version aad ka heli kartaa xaggana waa setting-giisi iyo waxyaabahaas ka hadlayaa hadda nimka waxyaabaha ugu caansan ee inta badan aan full version ku imaan waxaa ka mid ah
barnaamijkan la yidhaha FIFA Video oo ah barnaamij editing lagu sameeyo oo full version marka ugu horeysa Google Play Store kagama helisid, laakiin xaggan full version baad ka heli karaysaa. haddaan imika ka raadi FIFA Video Pro, haddaan ku qoro Pro macnaheedu waxa weeye applicationkaas waa Pro. haddaad ku darto oo application waxaad doonaysaa full version oo professional weeyaan, waa applicationkii full version ayaad helaysaa. FIFA Video, KineMaster, applicationadaas la isticmaalo dhan way ka mid. marka searchin tiraahdo waxyaabada markuu soo ardan marka hoos inta hore iskaga dhaaf, wuxuun baad applicationka ka heli karaysaa caadiyan. xaggaas see more ay ku qorantay wixii ka hooseeya ayaad applicationka waxaad u baahnayd ay ku jiraan. inta horeysa iska soo dhaaf waxyaaba ads iyo waxyaabaha iyagu kusoo dareen oo applications ku jira, laakiin see more wixii ka hooseeya ayaa weeyaan waxaad doonaysay searchikeedaad ka helisaa. haddaad xaggan hore usii raacdo waad aragtaa FIFA Video oo kii ahaa maxay ahayday trailerka aan yacni full versionka ahayn iyo kii full versionka ah, labadaba waa kuwan. kaasuna waa full version maaha, kanna waad aragtaan waa Pro si uu sharaxan yahay, waa full version weeyaan. kanna maaha full version, kanna waa full version. waad aragtaan kan si uu sharaxan yahay, Pro-na arkada kaga taalaa, waa full version markaa, kanna maaha full version. waxyaabaha kale ee aad full version ku heli karaysaa waxaa ka mid ah KineMaster oo iyadana ah application iyadana sida FIFA Video waa video editor isna full version aad ku heli karaysaa. kii aan full versionka ahayna waa kan kala dhina applicationka buuxa inay adskii wax ku jireen waa ka, kii full versionka ahaana waa kan. marka insha Allah intaas baan uga jeediyay inaan idila socodsiiyo inaad application kasta free aad ku heli karayso haddaa isticmaashay storeka loo yaqaana Aptoide. insha Allah applicationka barta laga download garaynayna descriptionka san idin sheegay soo dhigi doona YouTube xaggiisa oo saad eegtaan descriptionka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.